maanta waxaan rabaa oo shirkaygu jira ay ku saabsan yahay dhowr kelimood inaan ka idhaahdo madaxweynihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maanta dib isugu doortay magaalada Kismaayo. waxaa kaloo rabaa inaan dhowr kelmadood oo kale idhaahdo shacabka reer Jubbaland, gaar ahaan waxaan rabaa shacabkan guddoomiyaha u ahaa gobolka Gedo inaan ayagana kelimaad idhaahdo. marka madaxa ugu horeeya waxaan rabaa inaan sheego inayna sharci ahayn, annaguna aan soo dhaweynayn haddaan shacabka Jubbaland nahay, khaasatan reer Gedo inayna soo dhaweynayn aqbalayna anoo guddoomiyahoodii ah gobolka barasaabkoodii ah inaanan aqbalayn yeelaynina saxana aynan nala ahayn dib isu doorashada uu dib isu doortay madaxweynihii hore Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. sidaa awgeed waxaan rabnaa inaan niraahno wax amara oo Jubbaland leedahay oo ka shaqaynahayo gobolka Gedo ma jiraan. Jubbaland markaan leeyahay waa madaxweynaha cusub oo is doortay, isaga madaxweyne noo ahaa intii uu sharciga ah. mar hadduu sharci darre yahay oo dib isu doortay oo cidina uusan ka talagelin oo doorasho kambeynkeeda iyo waqtigeeda iyo waxooda oo dhan ay 10 beri ku dhammaadeen, dib isugu doorto asaga dhihi jiray baldawaar buu inta tegay shaar isla ekeeyuu tashay. marka mid isla ekeeyo hadda tashay waxaan rabnaa inaan sheegno inaan shaatigaas agtayada lagu xiran doonin haddii la yiraahdo. arrintaa intaasaan rabaa inaan ka sheego. waxaan rabaa inaan reer Jubbaland, khaasatan reer Gedo, shacabka Soomaaliyeed oo Jubbaland iyo Gedoba jooga inaan u sheego waxaas inayna sharci ahayn, annaguna aanan ka hoos shaqayn doonin dib isu doorashadiisa dib isu doortay. intaa markay ka aragta waxaan rabaa si gooni ah inaan shacabka reer Gedo ula hadlo, guddoomiyaha u ahay. waxaan rabaa inaan idhaahdo Axmed Maxamed Islaam waqti dheer buu madaxweyne ka ahaa Jubbaland, sharci iyo sharci darraba waanan ognahay oo wax badan oo tabashaha jiray. haddana waxaan dareemaynaa dad badan oo adinka inay cadifad iyo waxaan fiicneen ku taageereen oo ay asaga xaggiisa jiraan, ayagoo xasan sheekh iyo federaalka ka cararaya kana eed sheeganaya. waxaan qabaa waa sax, xasan sheekh iyo federaalku wax badan bay Axmed idinka hiliyeen, way idinku khasbeen, lugaha idinka xireen, laakiin systemka inuu shaqeeyo unbay ka wadeen baan isleeyahay intaa samaynayeen. wax badan oo dan ahoo hadda idinka aad leedihiin oo federaalku qabtayna ma jirto, laakiin waxaan qabaa intaad federaalka ka sheeganaysaan waa in la tirin karo. iyo xasan sheekh waxaad dhihi kartaan qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo waa hebel iyo waa hebel laga soo bilaabo dagaalka 7 ashraaf. laakiin waxaan qabaa Axmed eed sheegad wixiisu way dhaafeen, mana koobi kartaan, mana tirin kartaan. waxaan qabaa marka labadaba haddaad ka eed sheeganayseen maanta dantiinu waxay martay dhinaca xasan sheekh iyo federaalkay martay. maxaa yeelay waxay leeyihiin doorasho qof cod aan qabanaynaa, qof iyo cod aan qabanaynaa, waxaan dhisaynaa councilkii reer Gedo degmooyinka ugu badanoo waxay haystaan xorta ah. taas marka waxaad kaga badbaadaysaa cid dambe in xamar laydinka soo magacaabo iyo cid dambe in Kismaayo laydinka soo magacaabo, idinkaa fartiina eedi doono insha allah haddii ilaah yiraahdo. taa waxaan qabaa marka maslaxada hadda xasan isu keenkeenayso iyo dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha isu keenkeenayso waa jidka ay hayaan oo hadda sheegayo inay rabaan inay doorasho qof iyo cod ka qabtaan gobolka Gedo iyo Soomaaliya inteeda kaleba. marka ninka la yiraahdo waxaan qabaa taasaa isu keenkeenayso. wixii hore oo sheega lahay waxa dhan iska daaya, faraha laga qaado. haddii labada eed sheegad la simana waxaan qabaa Axmed Malkuud baa meesha ka kaxayn karee sida u qorshaysan isagu ma rabo inuu tago. laakiin ogaada xasan doorasho laga helay, hadda hor madaxweyne noqday, doorasho laga helay iska tagay. haddana in laga helaa dhici karto wuu iska tagay. laakiin Axmed ma aqbalaya wax kasta hadday dhacaan in doorasho laga helo, ma aqbalaya. marka hore uma diyaarinayo doorashadii lagu tartami lahaayoo dadka u dhaxaysay oo ma diyaarinayo, kumana tala jiro. waxaan qabaa marka taasna waxaad kaga biskootaan xasan doorashada uu ka tegi karaa, waa laga heli karaa, asbashaal cid buu ka helay, daraadna waa laga helay oo uu iska tegay, uu hambaliyey. berrina wuu hambalyeyn karaa intuu tago. waxay la tahay marka
maslaxadiina markii laga yimaado inaan aad aaminsantihiin inaan xasanna wax idiin hayn axmedna wax idiin hayn mar hadday saas tahay in axmed baa idinku qabiila intiina badan oo reer gadee aad qabiilnimo axmed ku taageertaan saas maaha maslaxadiina halkaas ma jirto maanta maslaxadiina waxay jirtaa doorasho qof iyo cod ah council in laydin dhiso in wax laydin hagaajiyo adinku inaad doorataan cidda idin hogaaminayso cid aniga ka dambayso oo laydinka soo diraa meel kale inayna jirin oo laydin soo magacaabo ama gudoomiye degmo ha ahaato ama mid gobol ha ahaato ama sarkaal ciidan ha ahaato waxaan qabaa saraakiisha ciidankana si unbaa loola macaamili doonaa taas marka waxaan qabaa waxaa dhow inaad jubbaland xor ah heshaan u tartantaan madaxweynaheeda u istaagtaan midda idinkugu dhow waa tan xasan iyo dowladda federaalka iyo xamse wadaan inaad necabtihiin iyo inaad jeceshiin iyo xagga iska dhiga waxaad isu keenkeenayso waxa weeye maslaxada hadda isu keenkeenayso iyaguna hadda halkaasi taagan yihin axmedna anigu waa soo arkay dhowr iyo toban beri baan soo mogahay dowladdaana waan arkay adinkuna hore waad u ogeedeen kismaayo axmed inuusan wax maslaxa cidna u hayn inuu asagoon kursigiisa isku sharaxa ma ogin waxaan qabaa marka maslaxadiina halkaa inay jirtaa allah idin garansiiyo xukunkaa laydin soo celinhayaa gacmihiina lagu soo shubahayaa idinkaas dooranhayo maamul hoosaadkiini baa laydin samaynaya ee dowladii hoose iyo kawnsalladii maslaxadiinuna halkaasay jirtaa taasaana waxay keeni kartaa intaad jubbaland u tartantaan inaad madaxweyne ka noqotaan dariiqa keliya oo ku imaan karo arrinkaas waa saas waxaan ogahay 20 nin baa isu sharaxday hadda madaxweynenimada jubbaland waxaan u malaynaya hal nin axmed keensaday yaad ku leedihiin waxaan rabaa ayrabooradu iyona si micno la-aana idinkaga xirmay dadan dan idin hayn iyona idinka xiray hadda kahor ayraboorada way xirmeen qaar ba xirmay dhibkiin ka soo gaarayna waad ogtihiin maslaxadiina kuma jirto in ayraboorka la idinka xiro axmed hadduu dad keensanayo ha keensado haddii uu magaranaysaa fadra laga imaanayo ha laga yimaado idinka waxaa maslaxa idinku jirta ayraboorku inuu idin furan yahay magaaladuna idin irmaan tahay siyaasadna aad faraha ka qaadaan waxay isku ceyrceyrsanaya waxaa kaloo rabaa hal erey inaan idhaahdo wiil yaroon adeer u ahay oo wasiirka arrimaha gudaha ka ah jubbaland isagoo hadlayaan dhegeysanayo mas-uuliyad kama muuqan wasiirnimo siduu u hadlayo ma tegi kartaan ma heli kartaan xaqiiqdii waxaan tegi karin waa adiga iyo axmed waxaan gala tegi karin nogada waa tegaynaa sida ugu dhaqsaa badan baan ku tegaynaa adinkuna amarkanaga unbaad ku imaan doontaan wixii hadda ka dambeeya haddii baad imaanaysaan laakiin cidda rasmiga oo xaqiiqda ah oon imaan karin gado anigana maaha dowladda federaalka madaxdeedana maaha cidda aan imaan karin waa idinka aan soo imaan karin waxaa kaloo rabaa inaan baaq u joodiyo barasaabyada saaxiibada ah oo labada maamul oo jubbaland markii gada laga reebo barasaabada ka ah gudoomiyaasha ka ah waxaan leeyahay taladu hadda innagayna joogtaa sukaya keena haddiiba aad ka soo bixi kartaan haddaad kismaayo joogtaana ka soo bixi kartaan anaa idin casuumaya garbaari baan idinku casuumaya waxaa mudan inaan masiirka dadkan ka tashano sida ay doorasho qof iyo cod u qabsan lahayn inaan ku hogaamino danahooda inaan ku hogaamino waan aragnaayoo waxaa sax ah inaan axmed dan jubbaland hayn dan gada hayn dad jubbada hoose hayn mid bu'alowsan hayn marka iyagana waxaan ugu baaqaya insha allah sidaas inay iga aqbalaan codsigaas waanaan martiqaadaya waxaan ku martiqaadaya magaalada garbaari ayadaan ku tashano ayadan hadda axmed ka talin arrintaan raba inaan kusoo gabagabeeyo waxaa weeye dadka soomaaliyeed oo reer jubbaland ayagana waxaan ugu baaqahayaa shir wadatashi ah oo garbaari ka dhaco oo gobolkan ku qabsano oo aan uga tashano waxa dhacay maslaxadeennadana aan isku weydiino